haddaba waxaas oo dhan sidee ku garanaysaa waxaan inay xun yihiin in wanaagsan yihiin sidee ku garanaysaa macsidu maxay tahay waa wixii alla ka reebay oo sameeyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عاني وناكسن saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laba shay kuwaasi oo noloshaada si dhab u quseeya kuwan waxa ay yihiin laba doorasho labadan doorasho mid walba waxaad u doorato ayaa noloshaada saameyn doona sidaad u dooratid ayuu noloshaadana si dhab u saameyn doona intaan muuqaalka u gudagelin haddaan nagu soo biir ka mid noqon halkan ku midoon qaybtaas ka mid noqon warab wixii fikirka ama talo tusaale ma hasanin soo dhawaada numberka koowaad qofkii dalba cilmi waxa uu dalbay jannada macnaha qofka hadii uu yahay qof cilmiga barashadiisa ku dadaalaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiin u baranaya una baranaya inuu ka dhowrsanaado xumaanta faaxishada baqtiga iyo balaayada inuu garto xaqa ilaahay ku leeyahay iyo xaqa adoomada ku leeyihiin iyo xaqa uu leeyahay qofku mar hadii uu yahay qof baranaya cilmiga diiniga noocyadiisa kala duwan waxa ay u badan tahay in qofkaasi uu noqdo qof ahlu khayr mar hadii aan noqotana waxa noqon doonta qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo oo jannada rabbi subxaanahu wa ta'ala gala marka qofkii dalba cilmiga waxa uu dalbay jannada waxa ay la macno tahay qofkii ku dadaala barashada diinta kuna dhaqma in ilaahay subxaanahu wa ta'ala raalaanshiisa uu helayo mar hadaa raalaanshaha Allah subxaanahu wa ta'ala heshina waxaad heshay jannadii alle number 2 qofkii dalba macsiyada waxa uu raadshay ama ahaaday qof ahlu naar qofka naarta gala waxa uu ku galay waa dunuub uu sameeyay dunuubtu maxay ahaayeen waa macsiyada lagu sheegay macsiyada waa wax walba oo xun wax walba oo laga reebay oo nafsadaada intifaacan u lahayn oo aad sameysay waxaad ku mudan kartaa ama aad ku mudanaysaa naarta maxaa keena waa amarka Allah subxaanahu wa ta'ala oo diidid macsidu maxay tahay waa wixii alla ka reebay oo sameeyay wixii alla ka reebay oo sameeysidna waxaad ku mudanaysaa naarta mar hadii aad gashid aad ahaatid sadarteed macsidu mar walba waxa ay tahay mid kugu hogaaminaysa wadada naarta mar hadaad qaadana waxa aad tagtay naartii hadii aad tagtana waa gashay hadii aad gashana waad ku waareysaa daba sidee uga badbaadaysaa inaad noqotid qof qaado wadada naarta waxaad uga badbaadaysaa numberka koowaad aan ku sheegay oo ahaa inaad raadisid cilmiga ama aad dalabtid cilmiga ama aad cilmiga baratidba sidaa rabtid u adeegso cilmiga hadaad baratid waxaad kala garan doontaa waxa kuu fiican iyo waxaan kuu fiicnaan waxa kuu wanaagsan iyo waxaan kuu wanaagsaneen halaagaaga iyo iyo waliibaantada ayaad garanaysaa mar hadii halaag aad ku dhacdid sidaad uga badbaadi lahayd ayaad garanaysaa liibaan hadaa heshid sidaad ugu sii deganaa lahayd oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga soo shukrin lahayd ayaad garanaysaa haddaba waxaas oo dhan sidee ku garanaysaa waxaan inay xun yihiin in wanaagsan yihiin sidee ku garanaysaa waxaad ku garanaysaa inaad noqotid qof ahlu cilmi ahlu diin ahlu sharafa cilmiga baro waxaad ka badbaadaysaa naarta iyo waxyaabaha xun oo dhan naarta maxaa lagu galaa wax walba oo xun oo sameeysid amarka alla oo diidid qof walba sidoo u dadaalo ayay darajada noloshiisa noqon doontaa haddaba nafteeda waxaan u dardaarmayaa barashada cilmiga aan barano cilmiga si aan uga badbaadno wadada naarta oo aan u helno wadada jannada waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad wax un ka faa'iiday hada wabillahi tawfiiq wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh